xilli maalmihii u dambeeyay ay si xawli ah ku socotay dhismaha wadada ka baxda Beledweyne ee xiriirisa gobolada Hiiraan iyo Bakool ayaa waxaa maanta booqday gudoomiyaha guddiga fatahaadaha Beledweyne ee ahna gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil Xaaji Cismaan Dhagaxow isagoo guddiga dhismaha wadada ku wareejiyay deeq lacageed oo dhan $3,000 taasoo uu sheegay inuu kaga qayb qaadanayo dhismaha wadada muhiimka ah. marka waxaan idin leenahay aad iyo aad aan idinka mahad celinayaa aniga war badan halkaan uma imaan waxaan rabay inaan waxqabadkiina aan faraxa idinla qaybsado idin soo gaaro uguna baaqo walaalaha ganacsatada ama Soomaaliyeed oo meel walba jooga dadka sadaqada bixiya u gaaro uguna baaqo walaalaha ganacsatada ama Soomaaliyeed oo meel walba jooga dadka sadaqada bixiya ama wanaaga jecel ama horumarka jecel inay ku soo dhiiradaan wadadan cidii wax u gali karta waxay ka mid tahay xaafadaha magaalada waa wada halbowle ah Soomaaliya oo dhan maraysa cid gaar ah maraysa ama jirto waa la wada leeyahay waxaan leenahay ku soo dhiirada dadka guddiga hoos xilqaamayna hal dhiiri geliyo waa la wada leeyahay waxaan leenahay ku soo dhiirada dadka guddiga hoos xilqaamayna hal dhiiri geliyo hana la soo dhiiri geliyo jazakumullahu khayr aad iyo aad wax way soo qaadin anu waxa shakhsiyadeyda cidna wakiil kama ahi guddi hadda kama socdo xoolo guddi ma wado oo guddiyada gurmadka wixii loo wax dheefkii loogu soo tala galay dadkii baahnaa waqtigoodii la siiyay hadii aad magacaas waa iska taytalo waqtiga waa dhamaado hadda maaragtaa gurmadkii wax dheefkii loogu tala galay dadkaas la siiyay marka anaa soo xilqaamay dadka walaalaha $3,000 ayaan wadaa $3,000 waxaan ku wareejinayaa guddiga hayga gudoomeen waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo waa $3,000 kaalma idin gasho waa boqol kaari ka way boqol kaariko oo jeebkayga ayaan ugu deeqay boqolka kaariko oo jeebkayga Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin barakeeyo guddiga ku wareejiyay qaar ka mid ah guddiga iskaashi oo gacanta ku haya dhismaha wadada ayaa ka mahad celiyay deeqda lacageed ee uu soo gaarsiiyay Xaaji Cismaan Dhagaxow Xaaji Dhagaxow khayr Allah siiyo wuxuu soo gaarsiiyay saaki deeq lacageed oo aad iyo aad agtanaga oo qiimo badan oo aad iyo aad $3,000 ah cadadkeedana aad iyo aad inoo badatay oo u dhiganta marka anaga aan qalbigayna fiirino $300,000 sababtay tahay meesha wax ka bilownay iyo meesha hadda maanta aan marayno meel aad u kala fog waayay Ilaahay ku mahadinay thumma Ilaahay ku mahadinay xajigana waan abaalkaas u haynaa إلهي أكتيسنا أبالا ورجينا إن شاء الله تعالى. مركب وحنا أمهد علينا يا مركب عليه وإنا واحد كهاي مركب لبعض وحنا أمهد علينا يا الله يردي إسكاد سكوح القانتي مركب سدحاد وحنا أمهد علينا يا حاج عثمان لقحو شركة دهبشيل قدومية هذا أدانه قدومية فتهادها مقالة البلدوينة حاج ومهسنتهاي وكاه قدوني داقدي أنا سوقار سيسي إلهي كاجسيو وحال الله وحال منك قفك مثلا كوحو ديبتا غراء سيانفع عيسى ووضح البولو أنت مساجد ما وحك أجر بدن إني سنجرين ووضع صوماليات ووضع مسلمين ووضع رير إيران حاجي وكا قدوني أنا قو أدمان أنت ماشي تاغن وكا قدوني وأنا كاغم هاد علينا جزاك الله خير ومهسنتهاي الله كابال المريو وأنا أصيباهن هاي أنت هذا ولك مدرقين عبد الناصر إبراهيم محمد CNN Beledweyne